asbaabaha kala fogeysa lamaanaha waxaynu in badan aragnaa lamaane nolosha isugu samri jiray oo ku kala tagay waxyaalo aanan u wanaagsaneyn habdhaqanka lamaanaha qof kasta waxa uu dunidan ka calmanayaa qof u qalma qofnimadiisa gabdhaha dabeecadda leh waxa u sugnaaday wiilal dabeecad leh kuwa dabeecadda xunna way isleeyihiin sidaa darteed waxaan aragnaa maalin kasta lamaane sii kala wada qalbiyo horaantiiba ahaa kuwo isu soo halgamay carqaladahaas oo ay tahay muhiim inaynu barano xalkooda أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا كالي aan si wada jir ah isula dhiraandhirine oo aynu barno halka waxay ka khaldan yihiin iyo sida aynu ula tacaali karno mushkiladahaas isku day inaad ka fogaato qodobadan si aysan saameyn ugu yeelan kala taga iyo kala geynta lamaanihiina waana muhiim inaan ogaano sida ay wax u jiraan oo aynu aragno hadda kadib lamaaniyaal iska ilaalinaya asbaabaha keeni kara kala guurka iyo qaxarka jahwareerka ah ee gelinaya qof walba xero mugdi ah kuna hubsanaya dhibaatooyinka iyo sawirro xanuun badan haddaba qodobka koobaad ayaa ah kalsooni darro maadaama aan nahay bulsho isdhexgal badan waxaa jira kalsooni aan ku qabno dadka qaarkii haddaba maxaad sugi haddii shaki uu ku abuurmay qalbiyadii isu wanaag falay qalbiyadii qirtay jiritaanka jacaylkooda waxaa dhici doona kala tag ay u sabab tahay inaan la is-aaminsanayn inaanan la isku kalsoonayn waa idin muhiim inaad isku kalsoonaataan sida ugu wanaagsan dhidibadana u aasmo jacaylkiina qodobka labaad khilaafka joogtada ah waa mid ka mid ah asbaabaha ugu waaweyn ee dila jacaylka kaasoo in badan dhaxal siiya qoomamo iyo shalayti sidaa darteed uma habboona lamaanaha inay markaa badiyaan khilaafka haddaba mid ogow inta uu khilaafkaagu badan yahay waa inta uu nacaybkaagu soo degdego maxaa kuu dhoweynaya wax aad lamaanahaaga ku kala tegaysaan oo aad uga bixi ballankii ahaa inaad isu sabri doontaan oo aad isu naxariisan doontaan ballamadaasoo idil waxaa burin kara khilaafka qodobka saddexaad adkaysi la'aan sida caadada ay ku qantanto ayaa ah in haddii laba qofi ay meel isugu imaadaan amaba wax wada qabsadaan inuu imaan doono isxagxagasho isdhibaatayn waxaana looga bixi karaa in lagaa helo adkaysi haa waa inaad adkaysataa waa inaad dulqaadataa oo aad ku sabirtaa wax kasta oo kaaga imaada geediga aad ugu jirto halganka dheer ee subadiisu tahay calaf waddadiisuna ay ugu magac dareen jacayl qodobka afraad kala dambayn la'aan waa in la kala dambeeyo si lagu noolaado nolol qurux badan nolol jacayl leh ku dadaal inaad lamaanahaaga kala dambaysaan haddii aad sidaas samayn weysaan u diyaar noqda dagaal iyo rabsho joogto ah qodobka shanaad ixtiraam la'aanta waalidka ma aqaano si aan kuugu sharxo qodobkan laakiin waxaa muhiim ah inaad ixtiraamto gabadha ama wiilka aad wada socotaan waalidkiis qadari oo dhowr waa waalidka oo kale ma aqaan sababta aad ula joogtid qof waalidka aan qadarinayn haddaba adigu kuuma hayo ixtiraam ee waxaan ku dhihi lahaa marba haddii uu waalidkaagu dhaliilayo isku day inaad bedesho maxaa yeelay alaabta qaaliga ahba waa la bedelaa haddaba waalidka ilaali oo dhowr sida aad u ilaalinaysid una qadarinaysid waalidka si la mid ah u qadari waalidka qofkan aad la sheekaysanayso ee ah lamaanahaaga shantan qodob waa shanta ugu badan ee keenta kala tagga haddaba iska ilaali inaad ku dhaqanto maan qodobadan aad ku kala tegi kartaan lamaanahaaga waxaan ku leeyahay haddii aad rabto inaad ka fogaato lamaane kula dhaqan shantan ugu dambeyn aan weyneyno qadarinta waalidkeen iyo waalidiinta kale waxaa helaynaa ajar fara badan waalidkan ayaan la dhibsan way ina xambaareen oo ayna koriyeen iyagoo aanan na dhibsan waad mahadsan tahay waalidkaygiiyow naxariistii nabadgelyo ha ahaato dusha waalidiinteenna oo idil أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا
يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا.